Assalaamu calaykum daawadayaal. Dhammaan asxaabta ku xidhan kanaalkeena waxaan u sheegaynaa inaan bilaabi doono taxane aan kaga hadli doono dadkii hore adduunka ugu saameynta badnaa. Waxaanan kaga hadli doonaa qaybteena ugu horeysa Ancient Greek amba Greekii hore. Ancient Greek waa meesha ay ka bilaabantay ilbaxnimada Yurubiyaanka 2500 oo sano ka hor. Qarnigii 16aad qaar ka mid ah magaalada waxay la qabsadeen dimuqraadiga. Dhammaan dadkii rayidka amba shacabkii reer Greek laga reebo dumarka iyo addoomaha waxay xaq u lahaayeen inay codeeyaan. Khilaafadu soo dhexmaro xubnaha siyaasadda iyo shacabka waxa kala saari jiray garsoorka. Magaaladii ugu badka iyo dadka badneed waqtigaas Greek waxay ahayd Athens. Magaalada Athens waxay ahayd dhexbartamihii dimuqraadiga Greek uu sida tooska uga shaqeyn jiray. Dhammaan dadka reer Athens waxay ku kulmi jireen meel qura si ay u doortaan hogaamiyahooda. Waxayna ahayd meel ka mid ah dhaqanka Greek filosofiga amba falsafada. Intaasi ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dheereen magaalada Athens magaalooyinka Greek. Greek waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ugu caansanaa amba ugu badnaa marka laga hadlayo xagga filosofiga dadkii hore. Waxaanay caan ku hayeen filosofiga rag kala duwan oo isla markaa taariikhyahanno badan soo maray. Waxaana ka mid ah sida kuwan soo socda: Socrates, Plato, iyo Aristotle. Waxaana sidoo kale ka mid ahaa ninkii ugu horeeyay aabaha taariikhda loogu magac daray ee Herodotus iyo kii loogu magac daray aabaha daawooyinka casriga ah Hippocrates. Halka Socrates oo ka mid ahaa falsafadlayaasha Greek uu indhaha caalamka u balaadhiyay fiisikiska, maadada xisaabaadka fiisikiska. Dadka Greek waxay ahaayeen dad luqad, dhaqan iyo diin isku mid leh. Laakiin waxa cajiib mudan in magaalo kastaaba ay goonideeda isku xukumi jirtay isla markaana lahayd sharci u gaar ah dhinaceeda. Isla markaana ugu horeyntii waxa la yaab ahayd in magaalo kasta ay xukumi jireen dadka awoodda leh oo kaliya, oo halkaas aanay ka tilin jirin dadka fuqarada iyo maskiiniinta ahi amba dadka lagaga tiro badan yahay dhinaca. Qarnigii 16aad ayaa ay bilaabeen qaar ka mid ah gobolladu inay isku xukumaan dimuqraadiga. Sidaasi ayaanu Greek ku noqday dadkii ugu horeeyay ee adduunka isku xukuma dimuqraasi. Kelmadda dimuqraasi asal ahaanteeda waxay ka timi kelmad Greek ah, waxayna ahayd sida tan: Demos Kratos. Kelmadda Demos Kratos marka la kala qaado waxay noqonaysaa sida tan: Demos dadka, Kratos sharciga. Demos Kratos sharciga dadka, Biber rule. La soco qaybaha dambe ee barnaamijka taxanaheena halkaas oo aan kaga hadli doono dad hore amba magaalooyin hore oo berigaas sifooyin iyo dhaqan u gaar ah lahaa. Haddaba daawada markaad dhamaysatid fiidiyowgan ha ilaawin inaad subscribe saartid isla markaana furo calaamadda gambaleelka si aad u noqotid daawadaha koowaad amba uga mid noqotid dadka ugu horeeya. Sidaas iyo nabadgelyo.